xukuumadda Somaliland golaha guurtida mucaaradka ayaa soo magacaabay xubnaha gudida doorashooyinka Somaliland gudidan oo ka kooban 7 qof ayaa 5 kamid ah waxa soo magacaabay madaxweyne Muuse iyo guurtida halka labada xubnood ee kalena ay soo kala magacaabeen xisaabta mucaaradka xukuumadda oo loo aaneynayay inay kala dirtay komishankii hore qabtay doorashooyinkii golayaasha deegaanka iyo wakiilada sanadkii la dhaafay ayaa haddana magacaabay xubno cusub oo si cad uga hor imanaya sharciga dalka haynoo dambeeyay qodobka sharci ee qabanaya ugu horeyn 5 xubnood ee komishanka ee xukuumadda iyo guurtida soo magacaabeen marka laga reebo Marwo Fahiima waxay 4 xubnood ee kala ahaayeen shaqaale u shaqeynaya madaxweyne Muuse Biixi Cabdi Axmed Cismaan Xasan waxa uu ahaa barasaab waxaanu ka tirsan yahay xisbiga kulmiye halka Axmed Yuusuf Maxamedna uu ahaa maareeye horena isugu soo sharaxay xildhibaan gobolka Sanaaga kuna dhacay doorashooyinkii balse xil suga booska xildhibaannimada sugaya hadii uu banaanada walina ka tirsan xisbigiisii gudoomiyaha gudida hay'adda dhawrista tayada ayuu ahaa Muuse Xasan Yuusuf haddana waxa loo wadaa inuu noqdo gudoomiye Xuseen Badhaane ayaa u soo qabtay madaxweyne Muuse shaqooyin kala duwan isagoo markii uu dambeeyay joogay wasaaradda waxbarashada waxaanu yahay xubin firfircoon oo u ololeeya xisbiga kulmiye taasi waxay tuhun weyn gelinaysaa dhexdhexaadnimada laga filan karo xubnahan iyo inay markan dhex u noqon karaan ninkii u shaqeynayeen sharciga xisbiyada mucaaradka waxaana isweydiin mudan ma lagu kalsoonaan karo ashkhaastaasi geesta kale sharciga doorashooyinka Somaliland xeer number 14 farqadiisa shanaad ayaa si cad u sheegaya in aan la ogolayn inuu ka mid noqdo xubnaha komishanka doorashooyinka qaranka xubin ka tirsan xisaabta dalka ka jirta qodobkan ayaa qaba inaanu ka mid noqon karin gudida komishanka doorashooyinka dhexna u noqon karin qaranka xubin ka mid ah xisbiyada dalka ka jirta hore ayaa loogu cuskaday xeerkaasi xisbiyada mucaaradka waxaana lagu celiyay 2 xubnood oo ay soo magacaabeen guurtida xisbiga mucaaradka ee wadani labada mudanana waxa loo cuskaday tuhnaha taageero xisbiga wadani waxaana lagu eedeeyay in mid kamid ah kaliya uu sawir ku galay huwada calanka xisbiga wadani halka kalena lagu eedeeyay inuu ahaan jiray taageero hore oo xisbiga isagoo xilli hore iska casilay taas bedelkeeda xubnaha cusub ee komishanka qaranka ee xukuumaddu soo magacaawday ayaa 4 kamid ah sidaan hore u soo sheegnay waxay yihiin shaqaale madaxweynaha u shaqeynayay muddo dheer sidoo kalena si cad uga tirsan xisbiga kulmiye sida ku cad qodobka sharciga aan kor ku soo xusnay 4 xubnood kama mid noqon karaan komishanka doorashooyinka qaranka mana jira sharci xalaaleynaya xubinnimadooda labadii xubnood ee hore loogu qabsaday inay taageereen xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa dib loogu celiyay waxaana mar kale dib loo soo magacaabay taas bedelkeeda mudanayaashan cusub oo kamid ahaa xubnaha firfircoon ee xisbiga kulmiye ayaa laga dhursugayaa talaagabada ay ka qaado xukuumadda Somaliland oo u eg mid baadi goob ugu jirta muran kasta oo siyaasi si ay u hesho cimri dherer iyo muddo kordhin xaaraana si ay taasu gaadhana waxay u maraysaa mahlako iyo sharci jabin kasta sida ay mar uu gaari lahayd muddo kordhin gabalkeedu dhacay iyo doorashooyin murankoodu daba dheeraado ugu dambeynna ay ugu soo afmeeri lahayd inay aqalka komishanka ay u fadhiistaan hay'ina taabacsaniyada